haddii aad doonayso in ay xaaskaaga ku jeclaato la imow arrimahan soo socda. Allah ka cabso oo ku dhaqan wuxuu ku amray. ku dadaal in Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku dayatid. xaaskaaga markastoo ay ku fiiriso u dhoolacade. habna si markaad magaalada ka timaado. xaaskaaga ugu yeer magacyo quruxsan, tusaale in aad dhahdo farxiyo caday. xaaskaaga hawsha qaarkeed la qabo, isku day in aad caawiso xilliyada aad guriga joogto. xaaskaaga ka ilaali waxyaabaha ay neceb tahay sida muranka iyo hadalka qalafsan. ka ilaali xaaskaaga in aad gabdho la hadasho iyadoo kuu baahan oo ku arkaysa. u sheekay xaaskaaga markastoo aad magaalada ka timaado. isku day habeen walba in aad xaaskaaga u sheekayso ugu yaraan saacad sheeko macaan. xaaskaagu ha kaa hesho xaqeeda gogasha si joogto ah haddii aadan xanuunsanayn. xiriiri xaaskaaga dadka ay jeceshahay sida hooyadeed iyo qaraabadeeda. xaaskaaga aad ugu naxariiso markay uurka leedahay iyo markay umasha tahay aadna ula joog. xaaskaaga isku day isbuucii in aad maalin hadiyad u keento sida barafuun ama wixii aad u aragto in ay jeceshahay. xaaskaaga isku qurxi markaad guriga joogto, barafuun marso, dhar nadiif ahna xiro. mararka qaarkood xaaskaaga cuntada banaanka uga keen ama banaanka isku raaca. xaaskaaga u gacan furnow oo iska ilaali baqaylnimada, khatar bay ku tahay jacaylka. xaaskaaga ha ku aragto adoo qur-aan ka akhrinaya ayadana ka dhagayso una aqri